14 bisha August oo ku aadan maanta ayaa waxa ay tahay maalin ahmiyad iyo qiimo gaar ah u leh dadweynaha reer Pakistan waana maalintii Jamhuuriyadda Islaamiga ee Pakistan ay ka xorowday gumaysigii Ingiriiska sanadii 1947. maalintan maanta oo inta badan Pakistan looga yaqaano Yawmul Istiqlaal ayaa gabi ahaanba dalka waxa ay ka tahay maalin fasax ah ayada dadweynaha reer Pakistan saqiir iyo kabiir bay isugu soo baxeen wadooyinka si ay ugu ciyaaraan uguna dabaaldegaan maalintan qiimaha badan. xalay 12 saq dhexe ayaa hal mar ah waxaa la maqlay hugunka rasaasta cirka loo ridayo taas oo loogu dabaaldegayo maalinta xorriyadda Pakistan waxaana ilaa iyo haatan meel walba ka socda ciyaaraha iyo dhoolatusyada ku aadan maalintan aan la hilmaami karin. dadweynahan u dabaaldegaya maalintan xorriyadda ayaa meel walba waxa ay ka ruxayaan calanka Pakistan ayagoo ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin Pakistan Zindabad oo micnaheedu tahay ha noolaato Pakistan. sidoo kale masaajidada qaarkood ayaa maanta khudbadii waxa looga hadlay ahmiyadda ay Pakistan u leedahay maalinta. Pakistan waxa ay ka mid tahay wadamada ugu waaweyn wadamada muslimiinta ah sidoo kalena ugu dadka badan waxaana ku nool dad kor u dhaafaya 170 milyan kuwaas oo sanad walba u dabaaldega 14 August oo maalintii ay gumaystaha ka xoroobeen. dabaaldegan maanta ayaa waxa uu noqonayaa kii 6 iyo markii Pakistan ay ka xorowday gumaystigii Ingiriiska sanadii 1947 xilligaas oo la taagay calanka Pakistan laguna dhawaaqay madax banaanida Pakistan. dabaaldegan maanta ayaa ku soo aadaya xilli 2 maalmood ka hor culimo Pakistani tabliiqa lagu laayay masaajid ku yaala magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Soomaaliya waxaana arrintaas aad uga naxay ugana xumaaday boqolaal Soomaali oo ku nool dalkan Pakistan. Pakistan waxa ay ka mid tahay wadamada farakutiriska ee iridaha u furay dhalinta Soomaaliyeed ee waxbarasho la'aanta ku habsatay waayadan dambe waxaana sanad walba soo gala tiro arday Soomaaliyeed ah kuwaas oo aqbalaada ka kala hela jaamacado kala duwan. sidoo kale waxaa Pakistan ku nool dadweyne fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu aan waxba baran balse siyaabo kale ugu nool dalkan. maadaama oo mar walba dadka Soomaaliyeed Pakistan kala kulmaan gacmo furan iyo soo dhaweyn wanaagsan ayaa arrinta ka dhacday Gaalkacyo waxa ay noqotay mid laga naxo waxaana dad badan oo aan la kulmay wajiyadooda ka muuqatay xanaaq iyo caro ku aadan sida ay uga xun yihiin dilka loo geystay culimada Pakistanta tabliiqa ee ayuu ku sugnaa masaajidka ku yaala magaalada Gaalkacyo. Duraan Xasiin Raa oo aadan koonfurta Pakistan Karachi.